ها وحق قف لوه بيكتب قرآن وكاسن بين له اللهم صل على محمد waxaan kaloo hadiyadeen lahaa xijaabadan dumarku ee khamyada aan diinta ku adag baan wixii fahansan waxaan sii lahaa in iPhone horta wax ka qaalisan qalbigan sii ma jirto de qofkan jecelahay qalbigayga wax ka weyn baa sii lahaa hawa saaxiibada igu dhaweey noloshayda my life ubax baan u geyn lahaa flower asana qofkan jecelahay waxaan siin lahaa kalideedan saar la qofaan jecelahay waxaan siin lahaa waqtigan lacag baan siin lahaa qofkan jecelahay insa dhabta u jecelahay qofkan jecelahay waxaan siin lahaa kalideedan saar la hadii u baahan yahay hadaan u baahnayn ka hor labadiisa kalida haysto hadaan u baahnayn marka hadaan u baahnayn kulli caafimaad ahaantiisa wixii u baahan yahay marka u saar la qofaan jecelahay waxaan siin lahaa waqtigan lacag baan siin lahaa sababtoo ah waxaan isweydiinaya horta waqtigan maxay ugu jecel yihiin moogti habluhu marka waa lacag soo maaha lacagtu aniga ama hay fududaato ama hay igu cuslaato laakiin maadaama jecelahay muxuu ahaay jacaylka jecelahay bay igu kalifayaan inaan siiyo wax kasta jeceshay oo lacaga horta qofka aad xiriirka la leedahay ama aad jeceshahay marka hore waa inaad adigu garanaysaa waxyaabaha uu xiiseeyo marka labaad waxa kale u raacin la wax weeyaan kitaabka quraanka waxa uu jecel yahay oo lagu daray kitaabka quraanka intaas oo hadiyadii leh wax wala uu jecel yahay ka dalbado inaad siiso iyo kitaabka quraanka wixii aan awoodo ee qofku uu jecel yahay mar hadii ku weydiis aanay ku weydiinayto inta badan ay xishood badan tahay adigu hadii nooc ma u garan lahayd kulli wixii qurux badan iyadoo ay jeceshahay anigu qofan jecelahay de qalbiga wax ka fiican ma jira aan siilaa anigu adduunyo amba wax kale oo aad ku abaalmarin lahayd wax kale oo ay abaalmarin de waxaan anu u dooraday ubaxo kale amba wax de kale laakiin wax qalbiga horta ka fiican ma jirto qalbigaygan siilaa hadiyada qalbigaygan hadiyadu ga dhigla hadiyad qalbiga ka wanaagsan oo la siisiyaa ma fiicna qalbigan siilaa qalbigaygan hadiyadu ga dhigla oo kaliya taa waxaad u raacinaysaa ma jirto qalbigayga wadan si xawma harin ba yaada wala aan ku dhaweystan su'aasha kitaab quraana kitaab quraan wax kale hadiyadu ugu dhigteen kaasal weyn wax qof loo hibeeyay kitaab quraan ugu kaasan been la bismillaahir rahmaanir rahiim de waxaan siin lahaa qof aan jecelahay hadiyad diintu raali ka tahay dhaqanku raali ka yahay oo اللهم صل على محمد كتاب بان soo fur lahaa oo hadiyadeen lahaa اللهم صل على محمد waxaan kaloo hadiyadeen lahaa xijaabadan dumarku ee khamyada aan diinta ku adag baan wixii fahansan oo de oon moodaran islaam ahayn de aan ku dhahay walaa aan ku dhahay waxaan sii lahaa in iPhone adu 14 ama 13 mobilkaas aad u qordlay waan ku dhahay walaalaastaan aad u mahadsantiin si waxaan igu soo dhaweyseen qofkan jecel yahay hadiyaddan oo hadiyeyn lahaa horta wax ka qaalisan qalbigan sii ma jirto maadaama qofka jeceshay qalbiga baad ka jeclaato qalbiga siisa sax hadii la siiyo wax gacanta la iska siiyo wax lumi kara wax dhamaan kara waa la helo waa la waayaa istii qofka hadda waxbadna naca ku keenay hadiyad waaye oo wax qalbigiisa ka timi laakiin already waxa ugu weyn aan qofkaas siiyay waa qalbigayga de qofkan jecelahay qalbigayga wax ka weyn baa sii lahaa hadiyad taas ay noqon lahayd wax ka weyn ma garanay anigu oo qalbigaaga kaasaa hadiyad uga filan walaal waxaan siin lahaa kutubka quraanka saaxiibaday qaadi nuura maxamuud aadan ayaan siin lahaa kutubka quraanka kariimka waa saaxiibada kugu dhow waa saaxiibada igu dhaweey noloshayda my life marka waxaan siin lahayd kutub quraan hay'ad ugu dhig kutub quraanka iyo iPhone qof aan jecelahay hadiyada siin lahaa ubax baan u geyn lahaa soo ubax baan u geyn lahaa flower asana hadiyada siin lahaa kulli horta su'aasha laba inuu kala qaadanaa qofka koobadan aad ka jeclay waxa weeyaan hooyadii Saara Muuse Axmed iyo sidoo kale ayadii Yusuf Ismaan Caynaan labada qof waxaan jeclahay inaan hadiyad uga dhigo kitaabka quraanka iyo sidoo kale tigirka xajka hadii la yiraahdo aad baan u jeclay